munaasabadan lagu weyneynayay sanad guuradii 42 ee ka soo wareegatay markii la aas-aasay ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS oo ay ku soo bandhigayeen waxqabadka taariikhda iskaashatooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaa munaasabada ka soo qaybgalay xildhibaano aqoon-yahano qaybaha kala duwan ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka iyo marti sharaf kale. waxaana looga hadlay horumarka iskaashatooyinka, waxqabadka iyo caqabadaha haysta iskaashatooyinka. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Maxamed Abuukar Afrax iyo gudoomiyaha iskaashatooyinka gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Derer ayaa si wada jir ah uga hadlay howlaha iskaashatooyinka iyo doorka ay iskaashatooyinka ku leeyihiin horumarka dalka. ummadana laga leexdo wax kama maane xoogsato way shaqaabuur ma baahni shaqa anaga haysana mid anaga waan haysano kaliya in la yiraahdo ha shaqaystaane kan xoog badan la yiraahdo war nimanka shaqadooda u dhaaf عشوتنا وبحنا صوت إلى ما عليه أطراء تجنا نهرنا لكن ما هدول وعمرنا إن سنعيش بس عمرنا شغل هنودا يقلينا شغل هنودا kusimaha xogayaha guud ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS ahna agaasimaha maamulka iyo maaliyadda iskaashatooyinka Muuse Cali Aybakar iyo kusimaha gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS Maxamed Muuse Maxamed ayaa ka warbixiyay ahmiyadda iskaashatooyinka. meel shalay meeshii la joogay meel ka wanaagsan hadda la joogaa berrina meel ka fiican la sii joogi doonaa wax kasta oo dhaawacaya socodka iyo ujeedooyinka in la xaqiijiyo in ilaahay wadankeena khayrkiisa ka faa'iideysano wax kastoo dhaawacaya in laga fogaado wax kastoo khilaaf in laga fogaado haddii ururka consumer cooperative loo jiri lahaa waa ku furi lahayn taanayna ku deynay suuqa ku deynay waa ku waardiyeynay marka inaad nala garataan aanan idin daycin oo gorabkiina aan taagannahay. wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Xaaji Cabdulle Isgow ayaa hambalyo u diray dhammaan iskaashatooyinka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. iskaashato sideeda waa waddo isku timi oo maartay wanaagana ka shaqeeya waxaan rajeynayaa haddii iskaashato maartay ay iskaashato oo si dhab ah isku kaashato wax dhibaato oo ku jira xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku booriyay iskaashatooyinka inay ka shaqeeyaan horumarka dalka. waxay la tahay waxa ugu horeeya oo loo baahan yahay dalka inay ku soo noqdaan waa iskaashiga ummadda hadday iskaashato dowladda waa soo noqonaysa laakiin inta qof walba gaarkiisa u fikirayo oo uu ka fikirayo jeebkiisa oo uu ka fikirayo noloshiisa kaliya nolol jiirmayso حقيقة وحوية من آدم كإلهي وحوصة لك إلى إسكاشة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بإلهي وأمر صيغة أمر إسكاشة معها ولا ينفعوا معناها وأفرطها هي واسونية معها صيغة أمر وهي وواجب. موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كسوماليات مقدشو.